wardegdega sidee loo toogtay taliya suul nuuge turbaba shakiye kala duwan ayaa hareeyay dilka abaanduulahan qaabkii ayuu u dhintay dagaal noocee ah ayuu ahaa dagaalka uu ku geeriyooday warbixin xasaasi ayaa laga helay furimaha hore ee dagaalka warbixintan xasaasiga ayaan kugula wadaagi doonaa ee muuqaalkan laagsaar si uu meel fog u gaarana sii shaargare ku soo birbartan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay xaqiiqda ku salaysan mahadsanid alle ha u naxariistay waxaa shalay galabtii geeriyooday abaanduulihii guutada 18aad ee ciidamada gorgor gaashaanle cabdi maxamed suul nuuge waxaana lagu dilay dagaal qaraar oo ka dhacay koonfurta gobolka mudug warbaahinta native somali tv waxay xog culus ka heshay qaabkii loo dilay taliyaha waxaana la hadalnay saraakiil ku sugnayd goobta dagaalka ciidanka ayaa gelinkii hore ee shalay weerar ku qaaday fariisimo iyo dhufeysyo ay kooxda al-shabaab ka qoteen buurta jeexjeex ee duleydka magaalada caad waxaana halkaa ka dhacay dagaal toos ah kaas oo looga taagroonaaday kooxda al-shabaab ciidanku markii ay shabaab ka saareen difaacooda jeexjeex ayaa la sheegay in taliyaha uu toogtay dagaalame shabaab ka tirsan oo dhaawac looga tegay xabad liifsaar ah oo uu meel fog ka soo riday ninka dhaawaca ahaa ee shabaab ka tirsanaa ayaa la sheegay in taliyaha ay uga dhacday meel u dhow wadnaha dhaawacaasi ayaana noqday mid aad u culus intaasi kadib ciidanka xoogga dalka ayaa dib uga soo laabtay dagaalka waxaana la qaaday dhaawacii taliya suul nuuge waxa uuna ku geeriyooday deegaanka shabeellow dhaawaca taliyaha waxaa loo sii waday wasil halkaasi oo la doonayay in diyaarad muqdisho ka soo kici timtay lagu qaado balse isaga oo meyd iyo dhaawacyo kale oo askar ka tirsanaa ciidanka xoogga oo dagaalkaasi ku dhaawacmay ayaa laga qaaday wasil alle ha u naxariistay taliya suul nuuge waxa uu ahaa halyey ka tilmaaman fagaarayaasha dagaalka waxaana jeclaa ciidanka uu hogaaminayey waxaana ka goonayd in al-shabaab uu si degdega uga xoreeyo deegaanada kala duwan ee gobollada dalka